inay xiriir la lahaayeen hay-ada shisheeye sidoo kalena qayb ay ka ahaayeen qorshaha taageerada Israa'iil iyo dowladaha kale. ciidanka booliiska Israa'iil ayaa xiray 21,000 ruux ee laga shakiyay intii dagaalka lagu guda jiray ilaa iminka sida warbaahintu ay baahinayso. marka aad eegto dagaalkii bilowday 13 bishii Juun, Israa'iil waxay ku beegsatay saraakiil sarsare oo militariga ka tirsan, dad rayid ah oo boqolaal gaaraya iyo saynisyahano muhiim u ahaa dowladda Iiraan. wixii markaasi ka dambeeyay muuqaalo iyo sawirro la soo bandhigay ayaa muujiyay fashilkii dhanka sirdoonka kadib markii la ogaaday in gudaha Tehraan lagu jiro oo unugyo ay ka shaqeynayeen. dhinaca kale dowladda Iiraan ayaa daha ka qaaday inay xabsiga dhigeen 122 ruux oo kale oo la sheegay inay u shaqeynayeen wiilka uu dhalay boqorkii kacaanka ee Afgambiyeen ee Iiraan, Reza Pahlavi, iyadoo oo dadkani la sheegay inay qorsheynayeen abaabulka iyo isku soo baxyo xooggan oo ka dhaca magaalada Tehraan oo caasimadda dalka Iiraan. ujeedaduna waxaa lagu sheegay inay tahay diyaarinta Afgambi la doonayo in xukunka looga tuuro dowladda Iiraan. Iiraan waxay taagan tahay marka dadkani qaarkood waxaa la xiray intii dagaalka uu socday, dagaalkii waliba 12 maalin ee Israa'iil kala dhaxeeyay, maxaa yeelay waxaa qayb ka ahaa qorshaha Afgambi guud ahaan oo Israa'iil ay doonaysay, inkastoo qorshahaasi uu fashilmay. marka dowladda Iiraan waxay leedahay xubnahani xabsiga ayay ku jiraan dhammaantood, waxaana ay ku eedeysan yihiin isku dayga Afgambi ka dhan ah kacaanka dowladda Iiraan. intii shalay gantaalo iyo madaafiic waxay ku garaaceen ciidamada Israa'iil fariisimo ay ku lahaayeen magaalada Gaza, waxaana tani ay jawaab ay kaga dhigeen howlgalka militari ee Israa'iil ay doonayso inay ka fuliso qaybo ka mid ah gudaha magaalada Gaza. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu dhankiisa waxa uu kulan ula yeeshay hogaamiyaasha ciidanka iyo kuwa amniga si uu qorshahaas u dhaqan geliyo. cutubka garabka militari ee Hamas ee Ciisadin al-Qassam ayaa maalintii shalay waxay sheegeen weerar xooggan inay ku qaadeen goobaha isku urursanayeen ciidamada Israa'iil ee dhanka Rafah iyo Khan Yunis oo koonfurta magaalada Gaza ah. qoraal ay barta Telegramka ay soo dhigeen waxay ku sheegeen in gantaalada gaagaaban ee Rujuum iyo kuwa kale ay la beegsadeen goob ay ciidamada Israa'iil isku urursanayeen agagaarka dhulbeereedka lagu magacaabo Shiidaha oo ku dhow jidka ama wadada Moraag oo koonfurta magaalada Gaza. waxay sidoo kale ay beegsadeen sida la sheegay ciidan isku urursanaya iyo gaadiidkoodaba agagaarka wadada Salaaxudiin koonfurta tuulada Iswaydiya ee galbeedka magaalada Rafah. xoogaggu waxaa intaas ku dareen in gantaaladaasi sidoo kale lagu weeraray xarun talis iyo ciidan ku sugnaa dhanka koonfureed oo magaalada Rafah, halka dagaalyahanadu ay hoobiyaal ay ku garaaceen maalintii Arbacada ciidan kale oo Israa'iiliyiin ah oo agagaarka masaajidka Rantiisi ee deegaanka Macaan ee koonfurta magaalada Gaza ku sugnaa. tani waxay ku sheegeen xoogagga iska caabinta ee Hamas ka hortaga wajiyada kala duwan ee howlgalka, waxaana ay doonayaan inay caqabad ay ku noqdaan howlgalka cusub ee ciidamada Israa'iil oo magaalada Gaza ah. waxay arintani ku soo beegantay xilli wili muran xooggan uu ka taagan yahay ama khilaaf xooggan uu sababay howlgalkii ugu dambeeyay xoogagga iska caabinta ay doonayeen inay ku afduubtaan taliye ku-xigeenka ciidan ku sugnaa koonfurta magaalada Gaza. qobarada iyo saraakiisha militariga ayaa waxay aaminsan yihiin in howlgalka cusub ee Jidoon 2 ay ugu magacdareen Israa'iiliyiinta uu caqabad weyn kala kulmi karayo xoogagga iska caabinta ee Hamas marka la eego howlgalladii ugu dambeeyay. dhinaca kalena wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa waxa uu shaaciyay in xukuumaddu ay meel marisay qorshe uu ku tilmaamay inuu yahay mid la doonayo in lagu soo gabagabeeyo xoogagga iska caabinta ee Hamas laguna daadgureeyo dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa burburisay in ka badan 50,000 oo dhisme, waxaana ay barakiciyeen dad gaaraya 16,000 oo ruux maalmihii la soo dhaafay. waxaad halkaa ka dareemaysaa qorshaha Israa'iil ee ah barakicinta dadka shacabka ah. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yezriel Katz ayaa Jimcaha maanta sheegay in la meelmariyo qorshaha militari ee la doonayo in looga adkaado xoogagga iska caabinta ee Hamas dadkana lagu daadgureeyo. waxaan ku qasbi doonaa hoggaanka Hamas inay aqbalaan shuruudaha Israa'iil si dagaalka loo soo gabagabeeyo. shuruudaheenu waa in la sii daayo dhammaan maxaabiista, hubka ay dhigaan xoogagga iska caabinta ee Hamas. haddii Hamas aysan taasi ogolaaninna waxaan magaalada Gaza iyo koonfurta Rafah iyo Beet Xanuun ka dhigi doonaa meel gabi ahaanba baaba'san, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil. wuxuu hadalladan jeedinayaa xilli dowladaha Carabta iyo kuwa reer galbeedkaba kaliya cambaareen mooye wax kale aan laga hayn ilaa iminka dagaalkana uu ka bilowday magaalada Gaza. waxyaabaha ka soo